dhirgoynta iyo nadiifinta airportka runwayga iyo biyo celiska oo istaagtay muddo dhaweyd intii ay hawlo yar oo xagga diyaaradihii soo dhex galeen dawladda iyo hay'adaha qaramada midoobay aanu maanta dib u bilownay saraakiishii ka socotayna ay soo egtay soo qiimaysay iskuna afgaranay in dib loo bilaabo oo la gaarsiiyo in dhirgoynta iyo nadaafadda iyo biyo celinta la gaarsiiyo ilaa 3 kilomitir iyo badh marka waxaan ugu bishaaraynayaa ummadda reer Somaliland gaar ahaan rakaablayda diyaaradaha raaca in badan ka cabanayay jidka Hargeysa iyo Berbera dhibaatooyinka ay leedahay markii noqotay Berbera xarun in dawladda Ethiopia shirkadda Ethiopian Airlines ay goosteen go'aankiina noogu soo bishaareeyeen inay bisha 9aad kowdeeda ka bilaabayaan duulimaadyadii caasimadda Hargeysa.